maxaa dagaalkiina cigaal uu ku qaaday beesha qarxajisna hoosta loo mariyaa dagaalkii uu siyaad barra ku qaaday beesha istaaqna korka loo soo mariya dagaal waa dagaal dulmi waa dulmi xabadina waa xabad ina cigaal wakhtigaa haddii uu haysta diyaaradaha wax duqeeya maka dayn lahaa inuu ku duqeeyo dhallaanka iyo hooyada qarxajis jawaabtu waa maya ina cigaal wakhtigaa hadduu haysta gantaalaha ridada dhexe iyo kuwa ridada gaaban maka dayn lahaa inuu ku duqeeyo dhulka qarxajis jawaabtu waa maya ina cigaal wakhtigaa waxa uu ku doodaya in uu ilaalinayo midnimada iyo isku haynta beesha isaaq halka siyaad barrana uu wakhtigaa uu dagaalka ku qaaday gobollada waqooyi ilaalinayay waxa lagu yeedhay midnimada iyo qarannimada ummadda soomaaliyeed haddaba dagaal waa dagaal ina cigaal waxa uu gaadhay heer aanu siyaad barre gaadhin ina cigaal waxa uu u soo kaxaystay si uu u duqeeyo guryaha beesha qarxajis waxa uu soo kaxaystay oromo canfar jaashi iyo beesha gadabuusi oon isaaq bahayn sida aad ku arki doontaan maxaabiista ay beesha qarxajis ka qabatay ciidamadii ina cigaal waxaa ku jira dad aan soomaaliba ahayn wakhtiga dagaalku uu dhacay wuu ka dambeeyey wakhtigii uu siyaad barre haddaba maxaa midna loo weynayaa midna hoosta loo mariya dulmi waa dulmi dagaalna waa dagaal halkan igala daawada sida uu ina cigaal xilligaa ugu ba'ayey waa dagaal naclinu bilxarb we are declaring war nooga baahato inaanu cid ku fidayno dowladnimadaya ma u diyaarnahay inaynu ku fidayno ma u diyaarnahay inaynu ku fidayno dadkeena dalkeena waxaa jirta heesta beeshay saaqa xanaaqdo ee tidhaahda soomaaliyey toosoo isku tiirsada dagaalkaa kadib beesha qarxajis waxay ka xanaaqdaa isaaqow toosoo isku tiirsada 1994 magaalada Hargeysa oo magaalo madax u ah Soomaaliland waxaa ka bilowday dagaal sokeeye oo laxaadkiisa leh 28 bishii Maarch ee sanadka kii xigay 1995 waxaa magaalo madaxdii labaad ee Burco isagana ka bilowday ugu muujin cajaladuna waxa ay ku soo koobi dabeeta dagaalku sida uu وين العالم في واحد يسوون حاكم يسوون حاكم يسوون سعودي زين كم أبوك سعودي وأعطينا سئلة الرغة إصبعي سيئة سنين أياك وأعطينا سئلة مقالة بريدية كعنتك وحيان تاسقوا أن إمك تاقنا هي برتمح مقالة
يقبو بداي دحجيتو فيما تدين حاني يقبو بداي دحجيتو دباتي كامن حو وانا بكم دوي nin oo reer Soomaaliland oo dhan isugu jira ayaa meesha soo fadhiya goob marka haddii ay yara kala saaro 34 ka mid waa habar jeclo 25 ka mid waa habar wal 10 ka mid waxa weeyaan arab 4 waxa weeyaan samaroon 2 waa soo jecle 2 waa beesha gabooyaha oromo waa mid يقبو بداي دحجيتو فيما تدين حاني يقبو بداي دحجيتو دباتي كامن حو وانا بكم دوي احنا بقول هذا بقول فتح شير حاج فتح شير ساعة فتح أحبها استباحتين محبوسات قولي هذا حكور أنا بحسبها هو بدنتي عندي كم حنوس عم نقبردي لا أمن لكن ممكن تلاقينا بحاول دولتنا هوسية يبريش أسكي في اليهود يعني السوق اللي هذا هو يعني إنساني ذاك المستعمر اللي كان يقارن في على الجمر إنساني هذا هو حاجة في ذاك أنا نقدر شغله ذاك نطلع كم الجاية ما عندك هاو تقول نقص عيد إذا كان يقولون والله ما يعبون لكن تقولون والله ما يعبون نورس علم يعني دبانا هايو جاي دبانا هايو الكي جاينا نحسدون نبدي لقاور نقدر نيا
يلا بيرتاح سوا بيتي يلا bartan aad arkaysaa waxaa lagu gubay baabuur jiiba oo ay leeyihiin ciidamada maryaaloolka cigaal mujaahidiintu inta ay timi ayay ka furatay qorigii nasiib darrase waxay noqotay baabuurkii oo hurushoobay oo ay sidaasi u gashay rasaastii lagu dhuftay iyo weliba tii isaga saarayd halkan oo ah misal jaamici magaalada Burco waxaa laga saaray cadawgii uu ku jiray ciidamada xulufada isbahaysiga ee maryaaloolka ciyaal ku amar ku taagleeyo sidaa awgeed waxaa qabsaday ciidamada isbahaysiga SNM taas oo ay kaga gacan sameeyeen meesha walbana sida ay u jabayaan sidaa iyo si ka daran ay tahay xoogagooda iyo jaamiciga Burco waxa ay fadhi u tahay taliska guud ee ciidamada isbahaysiga SNM ee maanta dagaalkan qaraar kaga jira magaalada Burco maxaad u tamaratay amba urgodo may maxaad og la jiray
maxaa lagu gurguurtay dhufays laga gudbaayo ma garwaaqsateeno ayaa gusha dhaaliyey aad maalin uun burco guudkeeda timid meesha muuqaalka sare ee kuu muuqda waa waddada soo gasha ama ka baxda ee magaalada muqdisho tagta ee loo yaqaano waddadii xamar dhirta waaweyn ee ka sokaysaana waa meeshii magaceedu ku caanbaxay gobabka inay gare xaafadaasi ka sokaysa iyo ilaa meeshan aan taaganahay oo qiyaasihii noqonaysa afkii dhinaca shacabka ama dooxa qarkiisa waxaa ku jira jiidan ciidamada isbahaysiga SNM wixii halkaasi ka dambeeya ama taangiga weyn ee kuu muuqda wixii ka dambeeyana waxaa ku jira ciidamada marya aloolka ee mujrim cigaal waxaad arki doontaa mardhow degada dayuuradaha ee magaalada burco oo ay joogaan qaar ka tirsan wiilashaasi asqaysan ee marya aloolku xaafadahanna sidaasi ayaad ku kala garan doontaa magaalada oo aad wada arkayso muuqaalkeeda guud geestan aad arkayso oo ku aadan dhinacii koonfureed ee magaalada burco waxaa gacanta ku haya maamulka guud ee isbahaysiga ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM oo fadhiisinkiisu uu yahay meeshii goordhoweedna aan ku tusayay waa xarunta dawladda hoose ee magaalada burco muuqaalkan duleed ee magaalada waxaan uga jeednaa inaad ku fahanto sida mugale ee isbahaysiga SNM uu gacanta ugu wada dhigay magaalada burco in yar oo ka baxsan dhinaca bariga moogiye waxa ay laxaad ku leeyihiin laba goobood oo ay ugu waaweyn yihiin garoonka dayuuradaha ee magaalada oo ay dacalkiisa shishe joogaan iyo meel anigu reer burcamaan ahayna la igu sheegay in la yidhaahdo siibaktiga oo fadhiisinkooda labaad uu yahay cadaawadii duminta magaalada ee maryaaloolku waxay saamaysay dhinacii bariga markii laga qabsaday aduu gacantaada shishan dhaniyo ka dhacaan qoryaha ee ciidamada isbahaysiga SNM baabuurkani waxa uu yahay wadada weyn ee xaafadda Abudabi Marshaad waxaana ku muuqday qaar kamid ah oo iyaguna ridaad nooc cusub ah oo Ismaaciil yiraahdo mar dhowna maqli doontaan codkooda iyo sanqadhooda oo runtii dhagahayaga wax ku cusub noqotay intii qoryaano arkaynay wiilashanina waxa ay joogaan tiida ugu horeysa ee ciidamada isbahaysiga SNM meesha ku beegan geesti bari ee magaalada ayaanu haatan weli joognaa waxaana imaka mar dhow dagaaladii ugu waaweynaa oo ka bilaabmay jiidaasi ka sokaysa ama bariga ka xigta dhinaca gobobka inay gare ay ciidamadu kaga sii jiraan difaac halkaasi oo ay uga soo qaadeen dhabarjabin ciidan ka yimi dhinacaasi bariga fog magaalada waxaana aad moodaa in ay imaka isuga adeegsadeen hub nooc cusub ah oo dhagahayga ku cusub way sii fogaanayaan marba marka ka dambaysa sanqadhuna waa ay sii durkaysaa taasi waxa ay marag muujin mar walba u noqonaysaa mar dhow ayaa halkii ay ka dhacaysay iyo qiiq meeshu ka baxayo aan ku geyn doonaa oo aad tegi doontaa waana soo arki doontaa halka ay tahay aniga oo fuushan geed gob ah oo ka mid ah dhirta inay gare halkaasi bal waynu ka war heli doonaa mar dhow waxay u egtahay in lagu gubay baabuur tignika waxba isdhibaatoonin maxbuusaad kowdhi sidii waxba ka hormay sidoo kale inacigaal waxa uu soo kaxaystay dhammaan beelaha isaaq waxa dhacay dagaal noociisa aan hore loo arag waxa uu inacigaal dagaalkaa ku qaaday beesha qarxajis oo wakhtigaasun ka soo noqotay dagaal adag oo ay la gashay dowladdii siyaad barre inacigaal oo xilligaa carabta ka soo noqday oo aan ogeyn waxa dunida ka dhacay waxa dhacay dagaal
laysku adeegsaday wax allaale iyo wixii tamar laysku hayay waxaa dhiigu qulqulayay jidadka berbere iyo burco waxaa dhiigu qulqulayay waddooyinka hargeysa waxa ahayd goob lagu hubsuumay magaalada burco waxaa laysku adeegsaday si kasta waxaa isdhaafi waayey inaya abtigii waxaa isdhaafi waayey edaya habaryateed waxaa isdhaafi waayey awowye inantii waxaa laysku adeegsaday nooc kasta oo ay tahayba dagaalkaas imika hoosta ayaa la mariyaa laakiinse dagaalkii siyaad baray korka ayaa la soo maraya dagaalka uu ina cigaal xulafada badan soo kaxaystay cidda keliyaata ee aan ka qayb qaadan ee diiday waxay ahayd beesha harti daarood ee degan somalilan kuwaas oo yidhi isaaq isku dudurinaya kala saraakiisha SNM oo hogaaminaysa dagaalka isbahaysiga ururka dhaqdhaqaaqa waddanka Soomaalida ee SNM Colonel Ran oo kamid ah waa kan waxa uu doonayaa inuu ka hadlo munaasabadan iyo dagaalkan isaga oo ah sarkaal isku kalsoon oo sida ka muuqata guul weyn gaadhay guushaasi ay saraakiishu gaadhay waxa walaalayaal waxaan idin sheegaynaa in mowqifkii SNM oo ahaa in ummaddan laga dulqaado dulmiga iyo keligiistanimada uu maanta yahay gabagabo meeshan aan joogna waa taliskii ciidamada SNMta qaybtiisii labaad ilaa saacaddan iminka aan hadlayna howlgallo wanaagsan ayaan ka fulinay insha allah inta hartayna waa noo gabagabo sidaas iyo shaqo wanaagsan quseeya jihaadkan maanta aynu ku jirno oo inoo tiriyo walaalkeen mujaahid kayse xuseen maxamed falyatafadal in dhaweyd irbihii gabay ma odhan ereyadiisii oo daba kamaan rogin murtidiinay ogaan jiray asaaga yimi ayaan furay